waxaa gebi ahaanba soo gabagaboobay qabashada liiska musharaxiinta xilligii loogu talagalay. waxaan rabaa saaka inaan warbixin kooban warbaahinta ka siino meelaha ay marayaan shaqooyinka doorashooyinka ama shaqada doorashooyinka. waxaa maalintii 8aad maanta galay qaybinta kaararka oo hadda guud ahaan degmooyinka iyo 7 gobol ee doorashadu ka dhacayso ka socota kaar qaybinta codbixiyaasha iyadoo si fiican u socota meelo badan goboladii ugu horeeyay kale ilaa in ka badan 60% ay qaateen dadku kaararka. sidaas daraadeed waxaan rabnaa oo ugu weyn fariintan halka ka dareynaa dadku inay kaararkooda qaataan ku baraarugsanaadaan in waqtiga kaar qaybinta uu dhamaanayo. goboladii koowaad oo laga bilaabayo 5 kaar qaybinta 4 bisha ay dhamaanaysaa kaar qaybintu bari kaar Gardafu Highland iyo Sanaag. gobol walbana 12 bari marka laga bilaabo ay ka soconaysaa ilaa gabagabeynteeda ilaa wax oo dhan. marka dadka muwaadiniinta ah waa inay qaataan kaarkooda codbixiya. qof aan kaar qaadan bari cidna kuma eedayn karo kaarkiisa inta loo soo daabacay degmadiisa inta loo geeyay goobta codbixinta uu ku qortay loo geeyay haddana aan qaadan waa khasaaro. marka ma codayn doono qof aan kaar qaadan. dadka waxaan ku baraarujinaynaa inay ka faa'iideystaan waqtiga kaarkooda qaataan. qodobka labaad waxaan dadka ku boorinaynaa xusuusinaynaa in qof walba uu kaarkiisa haysto cidna uusan kaarkiisa iska siin. dad waxaa jira la xiray oo loo xiray inay warqado uusan haysteen sidii aan hadda ka hor baa ka sheegnay oo dadka kaararka isku dayeen inay ka urursadaan ama kaarar urursan qaataan. sidaas daraadeed dadka awoodda iska leh waa dadka shacabka oo kaarkan leh oo loogu talagalay iyaga la rabaa inay kaarkooda ilaashadaan. waa xuquuqdoodii. bariga maalin waxa ka galay mugdi cid allaale iyo cid ku lug leh inay dadka kaararkooda ka wareeriso ama ku weydiisano waa inay ka waantoodaa cid kastoo ay tahay. wax faa'iido ay leedahay ma jirto. kaarka qof baa iska leh shakhsiyadiisu ku suntan shakhsigiisa un baa ku codayn kara cid kale kuma codayn karto. taasna waa qodobka labaad oo aan rabo inaan warbaahinta ku xoojino. qodobka saddexaad waxaa maanta bilaabanaya ololaha doorashooyinka furan jadwalkii aan hore u sii daynay. wareegga koowaad oo ololahaas ururadu waxay isla qaateen shalay in si loogu diyaar garoobo bambaxyada iyo goobihii iyo la isula cayimo ay wareegiisa koowaad aysan bambax samayn laakiin hoolasha iyo xisiyadooda iyo ka sameeyaan abaabulka labada wareegood dambana bambaxyada la sameeyo. marka waxaan dadka ku boorinaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada inay isku soo baxyada ku wacyigeliyaan dadka inay kaararkooda qaataan iyo inay si nabad ku codayaan. in urur walba uu mas'uul ka yahay taageerayaashiisa iyo waxa ay sameeyaan oo ilaaliyaan. in anshaxa la ilaaliyo qolo walba afkaarteeda iyo xuduudeeda iyo aragtideeda iyo waxa ay qabanayso ay soo bandhigto. ololahana ujeedadiisu ay saas u tahay aan cadaawad iyo wax kale toona ku jirin. nabadgelyada guudna la ilaaliyo hay'adaha amniga laga shaqeeyo iyagana intaasan ku boorinaynaa. ololaha waxa ka reeban oo laga mamnuucay in wax qabad degdega iyo xoolo nooc kasta ahaadeen cod in lagu raadiyo ama community ama deegaan inta loo tago in la yiraahdo waxaasan maanta ku siinayaa ay oday. sidaas waa corruption. waa mamnuucna waxyaabaha laga reebay ololaha bay ka mid tahay oo ka mamnuuca inta ay socoto ololahaas iyo doorashadaba. waa in aragtiyo qorshayaal wax qabad ballan qaadiyo mustaqbal oo maangala ciddii qabatay xukunka dowladda hoose
ay u ballan qaadaa dadka qorshayaasheedana waa caddaysaa laakiin maantaan waxaa ku siinayaa codka waxaan gelinay khanka suqmaasada sidaas darteed iyaduna waa reebanta waxaa lagu tartami karaa oo keliya waa aragtiyo qorshayaal waxqabad iyo in ururku uu soo bandhigo qorshihiisa iyo waxa uu qabanay dadkuna qorshayaashaas ay ku kala doortaan taas waa iyadana waa fariin kale waxaa gebi ahaanba soo gabagaboobay qabashada liiska musharaxiinta xilligii loogu talagalay waxaa hadda socota oo dhowaan la faafin doonaa in goobihii public ah loogu talagalay lagu dhajiyo liiska musharaxiinta degmo kasta ka tartamaya laakiin guud ahaan iyadana waa soo dhamaatay oo musharaxiin hadda dhiman ma jiraan kaliya waxaa laga shaqeynayaa boostriska waaweynaa lagu dhajinayay sida xeerku qabo degmooyinka ay ka tartamayaan degmo kasta musharaxiintoodu iyo goobaha waaweyn oo caamka ah xarunta degmadu ay ka mid tahay waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo inaan u sheegno in ururada ay ilaaliyaan anshaxa doorashada inay tixgeliyaan nidaamka shaqada in ay ilaaliyaan maaragtay hufnaanta shaqada ururada wakiiladooda iyo musharaxiintooda shaqo kuma leh kaa qaybinta shaqo kuma leh qaabka qabashada doorashada talana kuma leh waxay xaq u leeyihiin inay dadkooda abaabushaan xilliga kaa qaybinta kuma warwareegi karaan goobta waxaan kaloo u digaynaa musharaxiintu iyagoo musharaxiina haddana inay jebiyaan xeerka iyo nidaamka doorashooyinka daraad waxaa ogeydeen inaan dad musharaxiina la wadaagnay warbaahinta oo ka saaray kadib markii ku xadgudbeen nidaamka haddadaa waxaa jira dad laga yaabo inaanay fahamsanayn habraacyada doorashada qofka musharaxa ah waa inuu noqdaa qofka koowaad oo tixgeliya anshaxa iyo habraaca doorashada qaar ka mid a maayarada doorashada ku jira waxaan u sheegaynaa qofku mar hadduu musharax noqdo shuqul kuma leh waa laga yaabaa markii hore qaar qaybinta iyo diiwaangelinta iyo amni ahaan iyo la shaqayn jireen ama shirarka amniga iyo marka laga hadlaayo diiwaangelinta iyo ka qaybgeli jireen maadaama ay maamul degmooyinka ahaayeen maanta waa musharaxiin meeshay doonaan ka sharaxnaadeen waxay doonaan haw sharaxdana xubno golo degaan waay sidaas darteed wax shuqul iyo shaqo ah kuma laha shaqada doorashooyinka kaar qaybinta midna wuxuu xaq u leeyahay inuu tartamo ololeeyo dadkiisa cid weydiisto wax kale oo kale shaqo ku leeyahay ma jirto iyadana waxaan rabnaa inaan saa u sheegno maadaama dadka laga yaabo qaarkood inaanay fahansanayn oo aan loo ogolayn inay afaaraha doorashada galaan maadaama musharax qof kasta oo musharaxa waa in distance u dhaxeeya processka doorashada shaqaale kama noqon karo tala kama dhiibi karo oo conflict of interest arrimo ay leedahay qorshayaasheeda kama qayb geli karo inuu la sinaadaa dadka kaleeto fariintaasna waa rabay inaan la wadaago dadka guud ahaan shacabka waxaan u sheegayaa inaan wax kasta u diyaarin in doorashada qabsoonto sidaas daraadeed waa inay dadku waxa ugu weyn ugu muhiimsan maanta waa inay kaararkooda qaataan qofkii aan kaar qaadan ma codayn doono aad iyo aad baa mahadsantiin intaa yar baan rabay inaan la wadaago